السلام عليكم magacayga waa Nasid Cabdi Axmed maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo arrin ku saabsan single mother-ka runtii single mother horta waxaan ka wadaa gabdhaha ilmaha leh ama ninkii ha kala tagaan ama ha ka geeriyoodo runtii arrintan waxa igu kaliftay markii aan arkay rag badan oo waliba Soomaaliyeed oo gabdhaha siyaasaya ama liidaya mid kale waxa aan nasiib darro ah wiil ama ay soo korisay hooyo single mother ah in uu gabar kale single mother wax ka sheego marka aan saas leeyahay waxaan ka wadaa badankeena aabyaashin waxa laga yaabaa inay ku dhinteen dagaaladii ama ay kala tageen hooyooyinkeed Soomaalida majority-geedana waxa soo koriyo hooyo kaligeeda runtii hooyooyinkaas waxay leeyihiin qiimo aad u weyn waxa jirta faa'iidooyin badan oo ugu jirta wiilka inuu guursado gabdhahaas faa'iidooyinkaas aad ay u jiro badan yihiin laakiin faa'iidooyinkaas badan qaar ka mid ah ayaan rabaa inaan soo qaato midda koobaad hooyooyinkaas way isku filan yihiin waa dad ilmahooda mas'uuliyadooda caafimaadkooda wax walbaba ku filan oo qaatay mas'uuliyadii aabaha in saaray ayaga oo raba in ilmahooda horumar gaarsiiyaan tan labaad hooyooyinkaas waa hooyooyin hami leh nolosha ayay waxay rabaan inay ka gaaraan mustaqbal waxayna ka haystaan picture ama sawir wixii ay nolosha ka gaari lahaayeen ilmahoodana ay ka gaarsiin lahaayeen isla markaasna waxay ku howl jiraan sidii u gaari lahaayeen hamigooda mid kale waa hooyooyin aad u wanaagsan badanaa ragga marka ay raadinayaan gabar waxay eegaan ilmahayga hooyo nooceeya ayay u noqon doontaa runtii hooyooyinkaas waa hooyo kaligeed ilmaheeda mas'uuliyadiisa qaaday tarbiyadiisa caafimaadkiisa wax walba taasna waxay ka dhigtay hooyo aad u wanaagsan mid kale nolosha waxyaalaha yaryarka ah u sameeysid waxa laga yaabaa inaysan dadka kala macno u sameeynin laakiin hooyadan nolosha waxyaalaha yaryarka u sameeysid waxay u sameeyeen macno runtiina way appreciate garaynaysaa waxyaalaha yaryarka u sameeysid mid kale haddii lacala amaba wax ay kugu dhacaan ama dhaqaalahaaga ama caafimaadkaaga waxay noqonaysaa qofka koobaad oo mas'uuliyad isa saaraa sidii ilmaheeda iyo adiga ay ku garab istaagi lahayd waayo kaligeed ayaa ilmaheeda awal u taagneeda u shaqaysanaysay maanta markii ay wax kugu dhacaan waxay noqonaysaa qofka koobaad oo garabkaaga istaagay ilmahaagana caafimaadkiisa iyo noloshiisa iyo wax walbaba ka faala qaadaya faa'iidooyinka way badan yihiin runtii mana ka hadli karo waxa ugu talagalay wax yariisa ragga Soomaaliyeed waxaan kula talin lahaa inay hooyooyinkaas ay siiyaan xushmada ay naga mudan tahay waa mahadsantiin